Asalaamu calaykum dhalinyaro ku soo dhowaada kanaalkeena Mohan Recapes. Maanta waxaan idiin wadaa filim la dhaho Big Brother. Daawasho wacan iskana taxadira intaan bilaabin ka hor subscribe iyo like mahadsanidin. Filimkeenu wuxuu ku bilaabmanaya macalin cusub oo la dhaho Henry Jen. Wuxuu shaqo ka soo doontay iskuulka la dhaho Tahkachi Primary and Secondary School, laakiin maamuluhu wuu diidayaa inuu shaqo siiyo sababta oo ah khibrad uma laha macalinimo. Henryna wuxuu u soo saraya warqad kale. Maamuluhu markuu arko warqada wuu aqbalaya. Henry waxa uu macalin u noqday fasalka ugu dhibka badan iskuulka. Markuu fasalka galo wuxuu arkaya ardayda oo ku jeeda danahooda gaarka ah, mid game ciyaaraya iyo kuwa cunto karinaya iyo mid muusig tumaya. Henry wuxuu bilaabay inuu samuurada uu wax ku qoro, laakiin way ku qoslayaan fartiisa foolxun. Wuxuu ku qoraya magaciisa iyo lambirkiisa. Waxay bilaabayaan inay wacan iyagoo u sheegay inuu gurigiisa tago. Waxay mar kale bilaabayaan danahooda gaarka ah. Dhinaca kale Henry wuxuu bilaabay inuu soo jeediyo isagoo isticmaalaya tamaashir ama jeesto iyo lastig. Wuxuu ku dhufanaya dabdamiyaha, kadib meesha biyo ayaa isqabsanaya. Henryna daladiisa way u sii diyaarsanayd, ardaydana saas ayuu ku soo jeediyey. Dhinaca kale waxaa istagaalaya ardayda kubadda gacanta iyo fasalkii dhibka badna. Waxaa barana laadarka filimkeena oo raba inuu iskuulka burburiyo si uu ula wareego. Ardaygii dhibka badna ayaa wuxuu xaday bokos uu sigaar ku jiray, laakiin waxaa qabanaya laadarka. ciidamadiisa way garaacayaan. Wuxuu u soo bandhigaya inuu u shaqeeyo. dhinaca kale Jordan wuxuu soo xaday kaadh. waxaa soo eryanaya dadkii uu ka soo xaday, laakiin waxaa badbaadinaya Henry. Ardaygii dhibka badnaa waxaa lagu amraya inuu daroogeeyo ciyaartoyga ka soo horjeeda laadarka. waxaa arkaya ciyaartoygii ka soo horjeeday laadarka. wuxuu bilaabaya inuu silciyo. dhinaca kale waxaa imaanaya Henry oo raadinaya ardaygii, laakiin waxa uu diidaya ciyaartoygii. ciidamadiisa wuxuu bilaabaya inuu la dagaalamo kuligood. waxaa imaanaya askarta oo xidhaysa ciidamada ciyaartoyga. ardaygii ayaa dhahaya waxaa igu amray laadarka, laakiin wuu diidaya inuu ku dhahay. dhinaca kale dagaalku Henry gelayay waa la duubayay. waxay dadku ogaadeen inuu Henry dhigan jiray iskuulku hadda macalinka ka yahay. maalin maalmaha ka mid wuxuu la dagaalamay ardaygaasu gacanta ka jebiyey. waxaa loo sheegay ardaygii inuusan dib dambe u garaaci doonin biyano. Henryna waxaa laga eriyey iskuulka, kadibna wuxuu noqday askari. dhinaca kale waxay ardaydu go'aansadeen inay waxbarashada ku dadaalaan si ay mustaqbalka wax u noqon lahaayeen. waxay go'aansadeen inay imtixaanka galaan, laakiin waxaa ka hor istaagay laadarka ciidamadiisa si ay ula wareegaan iskuulka. waxaa ka soo gaadhaya Henry oo badbaadiyey si ay u galaan imtixaanka. wuxuu la dagaalmay ciidamka laadarka wuuna ka adkaaday. wuxuu ka hor yimid laadarka. waxaan ogaana laadarka inuu yahay ardaygii uu gacanta ka jebinayay. waxay bilaabeen inay isla dagaalamaan. laadarka oo la dili rabo Henry ayaa iska daynaya. dhinaca kale ardaydii waxay ku baaseen imtixaanka. iskuulkoodana wuxuu noqonayaa iskuullada ugu fiican magaalada. haddii aad halkan nala soo gaadhay, waad ku mahadsan tahay daawashadaada wacan iyo dhegaysigaaga. fadlan walaysa amran subscribe iyo like nagu caawi. mahadsanid. intaan fideogan fideow lamida ku kulmi doono, waxa ina leeyahay asalaamu calaykum.